kulan warbaahineed kan oo ka qabsamay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, wasiirka wasaaradda amniga, wasiirka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaasha waxbarashada ee gobolada kala duwan ee dalka, meerkooyinka caasimadda Hargeysa iyo taliyaha guud ee ciidamada booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda dugsiyada gaarka loo leeyahay. ugu horreynna madashaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Deeriye oo tilmaamay in ay muhiim tahay markasta in bulshadu ay isku tanaashuso isla markaasina wax kasta oo yimaada laga gaaro heshiis iyo go'aano muhiim ah. maamulaha guud ee dugsiyada Nuuridiin Mahad Ibraahim Cabdi iyo xubno kale ku hadlayay dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa uga mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska go'aanka quruxda badan ee ay qaadatay iyo isfahamka dhexmaray dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo xukuumadda Soomaaliland. halkan anigu kelmadda aan ka oranaya waxa weeyaan waxaanu raaligelin siinaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland baan raaligelin siinaynaa. sababta aanu siinaynaa waxa weeyaan waa madaxdayadii waxaanu gaar ahaan raaligelin aanu ka bixinaynaa hadaladii caadifada ahaa ee yar kululaa markaa wixii markaa hadal naga dhacay 100% dawladda sharafta leh oo madaxweynuhu u horeeyo ee Soomaaliland gaar ahaan wasaaradayada oo oday noogu yahay Faratoon oo nin wanaagsan ah oo professor ah hadaba faatay waan raaligelin macallimiin baanu nahay in runtii sidii dadkii ay muxuu ahaayay mikrofoonada wax isu marin jiray iyo shaashadaha arintaasi qalad farsamo ayay u dhacday xaal iyo apology iyo raaligelin buuxdana waan ka bixinay waxaan nuxurku yahay wasaarad kale ma lihin haddaan nahay private-ka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu maxaan raadayay hogaaminayo oday u yahay wasiirka Yaasiin Faratoon ayaa noo wasiir ah. gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa tilmaamay in arrinta ugu muhiimsan ee shacab iyo dawladba loo halgamaya ay tahay in da'yarteen ay horumarto isla markaasina waxbarashada ay noqoto mid horumarta. waxaanu ka qaadanay raaligelin ay nagu raaligeliyeen inay ku khaldameen mataqaana hadaladii ay ka sheegeen midyaha mariyeen ee ay telefishinada iyo ku tageen inay yara fududaadeen bay maxay qirteen waxyaalo badan markii aanu tixgelinay waxaanu isla garanay oo aan ogolaanay inaanu hore u soo qaadno waqtigii iskuulada la furayay meeshii aanu awal bisha September 1deeda iclaaminay waxaanu ka dhignay 12 sanadka waa sanadkan 2018 horaanu soo dhignay waxaanu ka dhignay bishan sabtidan soo socota meelta ka dambaysa maalinta in iskuulada private-ka la furo ayaan isla garanay arintaas sanadkan ay ku kooban tahay waxaanu ku heshiinay private-ku in aanu wasaarad ahaan soo saari doono calendar rasmi ah sanad dugsiyeed waqtiyadiisu cayima yihiin inaanu soo saari doono inayna taa ku dhaqmi doonaan wasaaraddu waxa ay soo saarto. heshiiskan isfaham ee ay wada gaadheen dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa ku mudaysan in 11 bisha August si rasmi ah loo furo dugsiyada gaarka loo leeyahay halka dib loo dhigay kuwa dugsiyada dawliga ah. geesta kalena agaasimaha dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Muuse Maxamed Shiro oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in uu aad u soo dhaweynayo heshiiska isfaham ay wada gaadheen mas'uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada. labada dhanba waxay ballan qaadeen in wada shaqeynta iyo isfahanka iyo isku soo dhawaanshaha la ilaaliyo oo wixii ay isla wada yihiin hadaf waaxid oo dugsiyada gaarka iyo dugsiyada public-ba labaduba ay wasaaradda waxbarashadu tahay waliyaal amr siiba wasiirka waxbarashadu yahay waliyaal amriga laga tala qaadanayo go'aanka keenaya talada keenaya dibadna khadka uu jeexana lagu dhaqmayo laakiin kulleyba dulqaadka iyo tanaasulka iyo sixid waxay ka yimaadaan ninka waxeerinaya ninka ma garanaysa mas'uulka markaa aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa go'aanka ay isla gaadheen wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarkii sida runta wada shaqeyn wacan waxaanu jecelahay inay fuliyaan dugsiyada gaarkii awaamirta wasaaradda.